idin bayaanshe buudo hadalku wuxuu yahay samalay baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada dahabkiyo birahana tabcada الكلا واحد كباردنا بايقا مقويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو idin bayaanshe buudo hadalku wuxuu yahay samalay baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada dahabkiyo birahana tabcada الكلا واحد كباردنا بايقا مقويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقة وحالي هذا سلطان حتين ساهد محمود وحان كايمد قبل كالشبيلة دقمد قدي وحان لاهي مركوري همبليو وحان ددوينها اقو بشارين هيا ميل والبالكون والدبد يقودو وحان اقو بشارين هيا in xukuumaddeennu maanta dadkii dhulka yaallay ee tabaaraysnaa ee dhulka wuxuu ku qotala'aa ee haddii la hadmahayey gumaystihii inaan ka soo doogsannay cidda waxaa la dhihi jiray kolkuu roob dogo soo doogsa waan soo doogsannay xukuumaddaannadii iyo dawladdaannadii madaxweynaha cabdi maxamuud cumar uu hogaaminaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka etoobiya waa ha noolaato marka ugu horraysa marka kale waxaan leeyahay maanta waa subax ilaahay si noo beriiyey abshir buu noogu beriiyey barwaaquu noogu beriiyey farxadda maanta na haysa inay naftu naga baxdaan taagannahay 600 haddii la hadmahayey taranteer yaa la qaybiyey iyadoo cid walba loo dahya meeshay joogto oon qabiil lagu bixini oon eexa lagu bixini oon madax lagu bixini oon ninka daalan ee ka yimi ee tabaalaysan ee beerta leh la siiyey waxaan leeyahay dadka etoobiya kuwa dibi socodka ah aan iska ilaalinno hormardiidka aan iska ilaalinno qushaasha aan iska ilaalinno oon elef ilaahay baaba dabar jare aan iska ilaalinno xukuumaddeenna kor allaha ka yeelo waxaa weeye waan u ducaynaynaa waan ducaynay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waan raysannay gumaystihii cagafta waxaa aniga ii qorshaysan goday ahaan oon ballan qaadahayaa inaan wax soo saarkii loogu talagalay inaan ka shaqeeyo ku hirgeliyo kaan waxba haysanin inaan u daneeyo kii wax haysta inaan dhaho warqabso intaasaa ii qorshaysan inaanan dawladda magaceedii iyo halgankii ay nala martay inaanaan bi'inin baa ii qorshaysan dawladda kor allaha ka yeelo xukuumadda kor allaha ka yeelo dadweynaha waan soo dhowaynaynaa war soo dhowaada war bushigii baa inaga baxay war qabiilkii baa inaga baxay war isdilkii baa inaga baxay cagafyadii waa nala siiyey intaasoo 100 baan ku taagannahay aan ku shaqaysanno yaynaan dawladda khayaanin yaynaan dhagrin ninkii dhagraa dawladda oo khayaaneeyaa isaga allah ku filan alxamdulilah goday ahaan cagaftan maxay faa'iido u leedahay maadaama webigiina uu jiifka u saaran yahay goday ahaan cagaftan waxay u leedahay in maanta meel la joogaba waa layla soo hadlee la faraxsan yahay inay wax soo saari inay dhulka cagaari inay u shaqayni inay u qardayni yaa u qorshaysan cagafta maanta lii siiyey yaa u qorshaysan dawladdu waa mahadsan tahay kor allaha ka yeelo idinkaa mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhaahaa cabdi maxamed cumar baa la yidhahaa salaadiinta guurtida kilalka ayaan ka mid ahay gaar ahaan jigjiga degmooyinka hoos yimaadanahay marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan hadda ii muuqda horta aan arko waxyaalo badan baa ka horreeyey
waxaan hadda ii muuqday saaka ku faraxsanahay waxyaalo badan oo ku farxa ka horeeyay sidaad u jeedo horta anigu imka dadkii ay ubadu naafisay ee maartay ay miinooyinka u dhigtay baan ahaa gobolada ay sii ragaadisay ee faafan ay kow ka tahay xagga ay naga xigana waan ka soo jeedaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeyaan gobolku kilalku isaga oo dib u dhacay oo curyaansan iyo ilaahay hoggaan ka dhigay cabdi innaga oon jirin ayuu wax naga dhigay waxa la wixii nabadiidaha ee odayaasha leenayay islaad diinta leenayay ee gabdhaha kursanayay ee haweenka leenayay iyuu horta ka sifeeyey aan horta taa dhamaysto markii uu taa ilaahay ku guuleeyey dee waxaa soo raaca cadowga duurka ku jira gaajada umad hadday ay sabool tahay cadowba ma weydo hadday laakiin wax soo saar hesho oo ay barwaaqo noqoto dee cadowba ma yeelato wuxuu u guntaday markii uu ubbo iyo al-shabaab nimanka alqushaash loo yaqaano uu bannaankaa mariyey ee waddankii u ogaaday inuu nabadgelyo yahay in dadkiisii wax noolaado oo webiyadaan leenahay ka faa'iidaysanno oo cagafyada bannaankeennan iyo dhulkeenna lagaga shaqeeyo bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdixariir faarax warfaa waxaa la ii siiyey shalay cagaf waxaa iigu deeqay xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaaliyeed oo uu madaxweynuhu horseed ka yahay iyo afhayeenka baarlamaanka islamarkaana guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaaliyeed iyo guddiga fulinta iyo golaha kabineydka baarlamaanka dhammaan waan u mahadnaqayaa waxaa kaloo oon u mahadnaqayaa munaasabaddii shalay bulshadii iskugu timiday oo dhan waxaa kaloo oon u mahadnaqayaa dhammaan oon bogaadinayaa xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ee madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu madaxda ka yahay dadaalka uu wado ee horumarineed ee nabadgelyo oo ku kala saabsan beeraha iyo biyaha jawigaa la qaatay madaxweynaha iyo xukuumaddaba aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa wuxuu qaatay in laga baxo baahidii dariiqii lagaga baxayena waa tanoo furayaashii baa lana siiyey shakhsiyan aniga cagaf baa la iigu deeqay oo lay siiyey waanan ugu mahadnaqayaa dowladda inkastoon marka hore dadaal yaraa haddana waan sii labanlaabi doonaa wixii ay dowladdu igu soo qorshaysay ee ay igu soo tilmaansatay iyadaa og laakiin waxaan dadaalayaa beeraha iyo biyaha inaan garab joogsado oon wixii iga taageer cagafta wax ugu qodo oo aan horumarka ka shaqeeyo oo aan nabadgelyada ka shaqeeyo bulshada soomaaliyeed ee 9 gobol deganna waxaan leeyahay aynu qaadanay jawiga dowladdu qaadatay ee jihada dowladdu qaadatay ee beeraha iyo biyaha aanu dowladdeena garab siino innaga ayaa dowladdiya gaar ahaan shacabka reer oo barre waxaan leeyahay oo aan ugu maanta matalayo oon ka socdo iskaashatooyinkooda 7 ku hadlaayo waxaan leeyahay dadaalkeennii laynagu yaqaanay maadaama boqolkiiba konton ama intii ka badan ay xoolo dhaqato beeraley innagu aan nahay inaan dadaalkeennii beeralayda iyo xoolo dhaqatadaba sii kordhinno taasaan shacabka reer oo barrena ku gubaabinayaa in TV-ga STV-ga iyo wariyayaasha had iyo jeer warka tabinayana boqolkiiba boqol waan u mahadnaqayaa aniga magacay waxa la yiraahdaa Sultaan Xaashi Cabdi Muuse la yiraahdaa waxaan ku magac dheerahay Xaashi Weyteen iyaan ku magac dheerahay markay sidaa tahay hawshan ay gahan ku jiro waa hawl aad u fiican way madaxweynuhuna wuu dadaalay hadda ka hor anagu maanta odayaal haddaan nahay waxaanu ku halgamaynay oo inaan la dagaalano oo aan waddanka nabadda samayno wixii oo dhan waanu samaynay wixii oo dhan ilaahay wuu nala qabtay dawladda ilaahay wuu la qabtay madaxweynahaasana yaa mudnaanta leh marka waxa weeye maantana waxaan ku shaqeynaa waa horumarkii weeye horumarkiina maanta dharaartii goday ka yidhi een u sheegnay godi dhaartaanu joognay horta wuu qaatay fikirkii wuu oofiyey wuu dhammaystiray marka waxaan leenahay aad baan u soo dhawaynaynaa annaguna halka iyagu ma halganka ka wadayna ka odayaal haddaanu nahay ka sanaadiil haddaanu nahay dhulkayna maanta dhulkayguna hadda ka hor dadkayga dhib haystay cagaftan waxaa laga qaadi jiray saacaddii 300 bir yaa laga qaadayay hadda markay dhulkaygii tagto dhulkii noo tagto bari hadda ka maalin lacag yar bay ku qodanayaan way ka faa'iidayaan soo garmis yaa loogu qodi iskaashatadii buu siiyey odayaashii buu siiyey dalkii kale odayaashii ka dalkii kale uu siiyey marka waxa weeye hadda saacaddii 300 ee qarshayd bari waxay noqonay 100 riyaal dadku marka nolol fiican bay noqonayaan
صبح برواقضا تعبتي وبيرها بيرهنا تبعدا ادكر واحد كبردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو idin bayaanshe buuda hadalku wuxuu yahay Soomaali baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada taabkiyo birahana tabcada ادكر واحد كبردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو haddii ay xukuumadda bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka haqabtirtay agabka dhulka wax lagaga soo saaro gaajada iyo saboolnimadana lagaga baxo maadaama cadawga koobaad ee deegaanku yahay saboolnimada maxaa bulshada la gudboon xagaftani ama madqaane maashinarigan waxaa madqaane ku baxday miisaaniyad aad u ballaaran ayaa madqaane xukuumadda deegaanku ay gelisay miisaaniyadaas oo madqaane aan sidii hore aan usoo sheegnay ay ka badan tahay 161 milyan oo bir marka bulshadii madqaane la siiyay ama madqaane iskaashatooyinkii la siiyay ama shakhsiyaadka fiican ee madqaane isbedelka keenay ee la siiyay waxaan halkan madqaane aan ku boorinaya ama madqaane aan halkan aan madqaane aan ugu gudbinaya farinteedii ah inay madqaane maashinarigani ay ilaashadaan oo madqaane laba jibaaraan shaqooyinkii madqaane hadda koor ay hayeen maadaama madqaane hadda maashinariga ay heleen in wax soo saarkooda ay kordhiyaan tiro iyo taayaba sidoo kale xafiisyada beeraha ee degmooyinka naftarkiisa maamulada gobolada inay madqaane maashinarigan ay ku gacan ay madqaane ay mar walbaba ay dabagalaan oo madqaane nimankana ay ku gacansiyaan baxa barwaaqada taabkiyo birahana tabcada ادكر واحد كبردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو idin bayaanshe buuda hadalku wuxuu yahay Soomaali baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada taabkiyo birahana tabcada ادكر واحد كبردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو